بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بحضر وحبرشة ملك استوى يجوعان بالسلام يا رمضان الكريم بالله يا بعض الصحافة دومان تالك نقل سوق يبقى شيء داني ذاك قد أنا جو أول سارة وحبرشة هي التعليم الصريح الدولة بوتلان وحنمانتش شير صحافة كان مقابلنا إن عدينه منهج كوحبرشة وسارة وحبرشة الدولة الفدرال كاهي أي هرجي سي كلها حكومة الدولة الفدرال كاه إنه يهي متجار كاه فدرال كا يو إنتي قبل الله وكلا غيب كشيء بوتلانسه وحوي مقصيو منهج كاي سقاهي arrimaha soo socda dartood mid ugu horeysa Puntland waxay leedahay manhaj waxbarasho oo gaamuray laguna dhaqmaayay muddo gaaraysa 15 sanadood laga soo bilaabo 2003 ilaa iyo maanta waxa la dhameystiray dhammaan muqarraradii dugsiyada dugsiga hoose dhexe iyo sare iyo manhajka waxbarashada dadban iyo manhajka farsamada waxaa sidoo kale la sameeyay qalfoofkii manhajka oo qeexaya dhammaan maadooyinka ardadu qaadanayso iyo saacadaha loogu talagalay kaasoo daboolaya tiirarka manhajka ee saddexda ah aqoonta oo isugu jirta diineed iyo mid maadiya xirfadaha iyo habdhaqanka manhajinta ka salaysan weeye manhajku waxa uu qayb ka ah maadada tarbiyada wadaniga ah oo lagu qaato dugsiyada hoose dhexe maadada maamul wanaaga oo lagu qaato dugsiyada sare iyo sidoo kale waxa manhajka qayb ka ah dhisidda nabadgelyada xasiloonida xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta deegaanka waxaa gacanta lagu hayaa qorshihii buugaagta lagu daabici lahaa sanada kale inuu joogno waxaa arintan tilmaamaysa in Puntland ay aad uga horumarsan tahay maamulada kale marka loo eego runtii manhajka waxayna ardadu imtixaanka ku galayeen manhajka muddo 15 sanadood manhajkaas inuu horumarsan yahay waxa uu marqaantiya scholarshipadi adduunka aaday oo nooga soo wada diray amaan nooga soo diray ardada aqoontooda inay sareyso akhlaaqiyoodkooda dhammaan aad iyo aad ayaa laga wada roor keenay inay magaraysaa ay jaamacadaha ay tab ka yihiin taas oo marxaati furaysa qodobka labaad wasaaraddu waxa awoodaha dawladda xubinta ka dawladda federaalka ah waxbarashada sababtoo ah waxay dastuurka lagu qeexay awoodaha ay dawladda federaalku gaar la tahay arrimaha dibadda difaaca lacagta sinjiyada iyo socdaalka wixii intaa ka soo hara waa in laga wada hadlo sida ku cad qodobka konton iyo afraad ee dastuurka federaalka ah haddaba maadaama aan weli arintaas laga wada hadlin dastuurka dawladda badan oo ku dhaqma nidaamka federaalka ah waxay tilmaamayaan in wixii awooda ah ee aan laga wada hadlin ama laga aamuso ay yeelan karaan dawladda xubnaha ka ah federaalku sidaas darteed wasaaradda waxbarashadu waa awoodaha dawladaha xubnaha ka ah federaalka qodobka afraad Soomaalidu waxay dooratay nidaam federaal ah
وانا قضب دستورية لكن ولي لقومه هشين قابك فدرال كل نقونا أيوه وحوض قيب سيجا أودها السياسة ده إيوه نقالها سيدو كلي أرمها الدستورك وولي لالن وأن لا إسلام ميل دقين سيدا أصدرتيد waxay noogu muuqataa arrin degdeg ah in laga hadlo manhaj qaran iyadoon la isla meel dhigin nidaamka federaalka waxa sal ah saddex arrimood saynu la soconno midda koowaad ma jirto cid leh awood mudlaq ah oo furan waa in wax walba la isla ogolaado wada tashi in wax walba lagu dhameeyo qodobka labaad qodobka saddexaad wax qaybsiga waa inuu ku salaysan dhinacyada awoodaha siyaasadda iyo dhaqaalaha sidaa darteed anagu waxaanu aragnaa runtii manhaj waa waxa ugu qiimo iyo qaayo badan waa qalbigii tacliinta la yiraahdaa waxa waliba qalbi bay leeyihiin la'aantiisna jaamacado ama dugsiyo socon karaa ma jiraan waa wax isla bedelo waqtiga waa wax isla bedel bulshada waa waxaan u baahnayn in lagu degdego ee inta la isaga yimaado muddo la geliyo la isaga yimaado dadka aqoonteeda iyo xirfadeeda leh loo saaro oo markaa manhaj bidaysan oo dadkoo dhan u wada gargaara ardada waxtara macallimiinta waxtara wasaaradda waxbarashada waxtara bulshadaas guud ee Soomaalidana runtii waxtara oo la isla meel dhigay oo aan lagu degdegin in la soo saaro kaas baa inaga noogu muuqataa inuu noqonayo midkii magaraysa noqon lahaa midka guud ee lagu wada dhaqmi lahaa marka sidaa darteed anaga haddaan Puntland nahay manhajka isaga ah 15 sanadood lagu soo dhaqmaayay ee gaamuray imtixaamada lagu qaado scholarship-yada laga wada helay miisaankii qiimayntiisina ay maartay noo timi kaas baan runtii noo jiraya ilaa inta maartay la isaga imanayo manhaj guud la samaysanayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin mudane wasiir وعمر سعيد ديريا سؤالان ku weydiiyay waxa weeye inta adinka warbaahinta wasaaradda waxbarashada Puntland ay isticmaalaysaa maxaa wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka xiriir ula sameyn weydeen waxa weeye federaalku wali waa wax process ku jira oo aan caga dhigan weeye qodobadiisa waataan hore inuu ku soo sheegay waxa weeye wax kasta in la isla meel dhigo oo laga wada tashado weeye marka waxa weeye federaalku isaga laga rabaa runtii inuu dadka isugu yeero waqti siiyo manhajka marka laga wada baaraan dego manhaj fiican oo aan lagu degdegin la soo saaro dadka cuntaba